shan siyaabood qofka loola wadaago fikirkaaga. shan siyaabood qofka lagula wadaago fikirkaaga. in my opinion fikirkayga kadib dheh fikirka qabtid. I would say waxaa loo soo gaabiyaa I would say waxaan oranayaa kadib dheh fikirkaaga. personally I think mise personally I believe shakhsiyan waxaa aaminsanahay, shakhsiyan waxaa ku fikirayaa kadib dheh waxa ku fikiraysid. if you ask me haddii ay weydiisid kadib fikirkaaga qofka la wadaag. the way I see it sida aan u arko. the way I see it kadib sida u arko qofku sheeg. from my point of view aniga docda aan ka arko kadib sida u aragto qofka la wadaag. shantan eray mar walbo waxaa u isticmaashaa markii aad fikirkaaga qof ku biirinaysid. mahadsanid.